أصلاً لا قيمين بوضبط كعين وضبط كعين بلاجيري مركز صورتين تبكي وجريها نقار كل جوري بان يعني ما ماشان العجيري بان مركز دمعين تان أرد كم مرة عن دربين حاجة قديمة كل الكوائل اللي في مركز إنت رجع قال ماشان سكوك في الجلبة حتى ويمرسيني dab xooggan ayaa qabsaday xaafado ka mid ah xirada qaxootiga Xagadheere taas oo sababtay khasaaro hantiyeed iyo weliba dhaawac balse aysan jirin wax dhimasho ah ilaa iyo haatan weli laga soo sheegin goobaha uu dabka saameeyay waa kuwan dadka khasaaraha soo gaaray oo la hadlay telefishinka caalamiga SBS magacay waa Maxamed Rashiid Dubad xarag gudoomiyaha Sifo meeshan maanta waxa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u badan dadku wuxuu socday taqriiban 25 minute bas socday dabku waxaana ka dhacay meesha khasaare aad iyo aad xal badan leh oo khasaaro badan marka waxaana u soo gurmaday dadweynaha kaamka oo dhan oo dhammaystiran baa loo gadamiyay waana ku guulaysanay damitaankiisa magaca ku bilaab magaciisa inuu xaraad xasan waxa ay gubtaan 3 qol iyo ilmihii dharkoodi joodari goosh ku seexanayeen sariir hasho ayo gubto wixii maacuun wax kursanayo hadda alxamdulillah waan fiican sida kale ilmaha daa iga gubanay صدق قلا يقبتي لو ولشي سيحنا أي دمير بلا أو على تكبر أي يقبتي وقتي أتوقع أنت وكوبة بعد مثل جودري حبضوا على بحي حبة صغيرة وليش أنتوا جاي معدن أنتوا طورين قولي أو طورين دبكم مركوب بالله وأنا حاجة كبلا دبكم كبلا وتقولي على البارو كرنتينا يتنجع له كراي كبلا وتيجي سان كير كي ما كان سوي استاغ طبعا صفر سارايفو دبكي ولا أنت تقصر بعوم هذا goobta ayaa soo gaaray mas'uul ka tirsan laanta dawladda ee arrimaha qaxootiga uu ka warbixiyay waxyaabaha uu dabka sababi karo iyo in ay jirto dhinaca nafaas yarida ay cariiri ku tahay deganaanshaha dadka. Maxamed Yuusuf waxaan ahay raas balaan chairman waa dabkii labaad aan la kulmayna saaki midna wuxuu ka dhacay B4 C4 aad baan u xidhnay dababkan soo naqnaqday qaxootiga oo ebilka raba iska dhibana haddana culays fara badan saaran dabkan oo guriyihii hay'adihii bixi jireen hadda ay joogsadeen dabkana saan u socdo marka aad baan u xunnahay keenaya badiyaa korontooyinka hadda dabka saaka aan tagnay anay iyo Maxamed Cabdullaahi waxaa la yidhi koronto ku kacay kan laakiin weli ma waraysaneen waxaa nagu boobsadeen waraysiga wuxuu ku kacay ma sheegi karnaa laamaha dabdamiska iyo hay'adda adigu sheegtay maxaa la isaga caawiyo hay'adda ma soo gaari karta hay'adda saaka waan wacnay iyadoo dabka dhalinyarada qar alaasi ee dhalinyarada joogta kaamka ayaga dabdamis ebo way hadii ayaga ahaan kaamka oo dhan waa hore laayo dabdamis hadda dhab laga sugay haduu yimaado goorma halkaan soo gaaray marka dhalinyarada dabdamis ay ku kan u mahadinaynaa qaxooti dhinaca kale waxaa goobta soo gaaray hay'adda Laanqeyrta Cas oo u xilsaaran dhinaca ka hortagga masiibooyinka ayaa goor dambe soo gaareen ayna ka qaateen kaalintooda dabdamiska ka tirsan shaqaalaha reer Cross magacay waa Cabdirashiid Laban aan security officer waxaan xilsaaranahay xagga nabadgelyada reer Cross dabkan saaka waxa abaarihii lixdii ka dhacay baloog B4 kaasoo ka kacay koronto oo sababtay B4 taas oo macnaha ay dadku ay badan gurmad sameeyeen laakiin dhalinyaro yar iyo carruur iyo haween iyo jidadkii oo ciriiri aan laga damin karin dabka haddana wuxuu ka kacay abaarihii 4 galabnimo baloog C4 taasoo haddana ay sababtay koronto dhibaatooyinka ay hay'adda Red Cross ay ka qabto macnaha xagga dabkan waxaa ka mid ah wadooyinka oo ciriiri iyo dadkii dadweynihii oo macnaha sameynaya inay dadkii aan laga damin karin dabkii Mukhtaar Xasan wararka SBS deegaanka Dadaab